بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر labaad agaasimayaasha guud dhammaantood waan salaamayaa, waana idin mahadnaqayaa inaad ka soo qayb gashaan shirkan. waxaan idinka raaligelinayaa sidaan sheegay waqtigii aan qorsheynay inuu shirkeenu dib uga dhacay sababaha iyo shaqooyinka inoo taagnaa ee qaranku uu lahaa awgeed. laakiin waxaan isleeyahay waqtigii u fiicnaa baa idinku soo beegmay oo ah xilligii aqoonsiga. waxaana maanta tisiin hogaamiyeyaal qaran oo ka mas-uula dowlad la aqoonsan yahay insha allahu. fariinta aan u farayo dunida iyo saaxiibada somaliland iyo imika cadowga somalilandba waxa weeyaan, taariikhdu waxay qirtay, waxay ka marakacday in shacbiga somaliland uu qalin iyo qoriba u huray inuu ku difaaco sharaftiisa iyo jiritaankiisa. sidaa marar badan aynu ku soo celcelinay, agaasimayaasha guud waa mashiinkii shaqada dhammaan wasaaradaha iyo institutionka kale aad joogtaan intaba. waxaana kala caddaynaya xeerarka ayaa inoo kala jeedinaya sida agaasimaha guud ee deegaanku uu akhriyayey responsibilitieska wasiirka, agaasimaha guud, wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenkaba. waxaanu jecel lahaynaa wax kastoo kasoo dhasha ama khilaaf kastoo ka dhasha hawshaas in lagu xalilo uun sida uu sharcigu yahay haddii aan la yidhaahdo. agaasimayaasha guud saa aanu sheegnay maadaama ay yihiin injiinkii shaqada, marka waxaa laga rabaa maareynta shaqada, hirgelinta iyo ficilo rogista siyaasadda iyo xeerarka iyo go-aamada xukuumadda inay gaadhsiiyaan dhammaan dadka ay u adeegayaan ay shaqada u hayaan haddii aan la yidhaahdo. dunida horumarku dee wax iska yimaada maaha. horumarku wuxuu ku imanayaa oo ka dhashaa nidaam dowladeed oo ku dhisan cadaalad, dowlad wanaag iyo sareynta sharciga. marka waa inaynu ummad ahaan aynu ku dhaqanno shuruucda aynu dhiganay. waxaa laga yaabaa ilduuf ku yimaada sharciga ku dhaqankiisa inuu inta badan khilaafaadku ka yimaado. taladiinna inay soo gaadho oo soo dhaweynaya. wixii aad tala haysaan waa ii soo gudbin kartaan, waanay soo gaadhsiin kartaan haddii alla ka dhigo. waxaan ku celinayaa oo idin xasuusinayaa in de siyaasadda xukuumaddu ay tahay anaga go-an tahay inaynu hirgelinno daahfurnaanta oo qof waliba shaqadiisa au daahfurnaan uu ku qabto, la dagaalanka musuqmaasuqa, dayaca mas-uuliyadaha iyo ka hortagga ku tagrifalka awoodaha qaranka. somaliland waa shacbi dadaalay oo wax soo dhistay oo nabad samaystay oo maamul samaystay. cidina umay samayn somaliland, shacbigu iyagaa samaystay. geed hoostii bay ku shireen, banaano cidlaa bay ku shirayeen, magaalooyinkooda ayay ku shirayeen. halka soomaaliya laga yaabo 20 shir in loogu qabtay meel dalkooda ka baxsan. nabadda ay samaysteen mid gudaha dalka ka dhalatay weeye, mid loo soo mustaafiriyey ma ahayn. nidaamka dowladeed ay samaysnaa waa mid ay iyagu samaysteen. maantana waxaa loo qarsan yahay inay hadday dimuqraadiyad tahay
iyo hadday maamul tahayba ay dhammaan qaybaha kale ee dadka af Soomaaliya ku hadla iyo gobolkaba ay ka horumarsan yihiin ma odhan karno wax waliba way noo dhan yihiin wax badan bay naga dhiman laakiin waxaynu u baahan nahay intaana dadaalkeena aynu ku dadaalay inaynu samayno intan jirta aynu ku dhammaystirno haddii alla yidhaahdo maanta dal la aqoonsan yahay baynu nahay waxaa idinku soo kordhi doonaa xiriir badan oo iskaashi oo dalal badan aynu la yeelano marka inaynu diyaargarowdaan sida u maamuli lahaydeen una maarayn lahaydeen xiriirada badan ee nagu soo socda wasaarad kasta iyo department kasta iskaashigu inta hore ka badanaya marka inuu diyaargarowna looga baahan yahay waxaan kaga tegayaa isku duubnidiinu waa muhiim wada shaqayntiinu waa muhiim mas-uuliyiinta kale dee wasiirada iyo kamid yihiin iyo guddoomiyaashana iyagana sida aanu idinla dardaarmayno waanu la dardaarmaynaa saacadaha shaqadu waa muhiim dalku horumarkiisana way ku xidhan tahay inta saacadood ee la shaqeeyo de waa sharci baynu samaynay minimum qofka shaqaalaha ah ama wasiir ha noqdo ama DG ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo waxa weeyaan deyn dadku ku leeyahay saacadaha shaqadu qofka waxaa ku waajibay inuu 8 saacadood ha shaqeeyo marka saacadaha shaqada waa la isku dabagelayaa imika kadib ama wasiir ha noqdo ama DG ha noqdo ama cidda doona ha noqdo qofku waa inuu 8 saacadood shaqeeya oo xafiiska laga helaa qofku waa inuu ku talagalo muraadka leh dee danta leh loo adeegaya inuu iman karo 10 subaxnimo oo 1 iman karo oo 2 iman karo oo 3 iman karo waxaan ku talagelaynaa ilaa 3 aynu shaqeyno taana waynu dee ku dadaali doonaa waan ogahay oo ma hawl yara laakiin waa waajib qofka saaran waana deyn lagu leeyahay 8 saacadood inuu shaqeeyaana waa waajib